السلام عليكم. وحنا هيدي دكتور شوقي يونس محمود. waxaan ku taqasay qalimada guud iyo qalimada casriga ee laparoscopiga. waxaan leeyahay in ka badan 20 sano oo khibrada oo qalimada guud ah. waxaan ku faraxsanahay inaan dib ugu soo laabtay shaqada oo aan hadda ka howlgalayo isbitaalka Kalkaal. muddo dheer ayaan gudaha Soomaaliya ka shaqaynayay, gaar ahaan isbitaalka Kalkaal, anigoo u adeegay bukaanno fara badan oo Soomaaliyeed. hore waxaan u soo shaqeeyay intii u dhaxaysay 2021 ilaa 2023. waxaana farxad ii ah inaan mar kale ku soo biiro baahda isbitaalka Kalkaal. waxaan diiradda saari doonaa bixinta daryeel caafimaad oo dhammaystiran, gaar ahaan cudurrada la xiriira habka dheefshiidka. xanuunada iyo xaaladaha daweynaya waxaa ka mid ah xanuunada iyo dhibaatooyinka hunguriga, xanuunada caloosha, gaastriga iyo cudurrada kale la xiriira, daaweynta noocyada kala duwan ee eernada, qallimada xameetida, burooyinka, qallimada qabsinka, qallimada baabasiirka, falanqayn dhammaystiran oo bukaan si loo hubiyo ogaanshaha saxda ah iyo daaweyn waxtar leh. waxaan ku faraxsannahay inaan idin adeegno. waxaan naga go'aan inaan bixinno daryeelka caafimaad ee ugu fiican insha Allah.